in ka badan 300 oo qoys oo danyar ah ayaa ka faa'iideystay deeq raashin oo ay dawladda Cumaan ugu talo gashay qoysaska danyarta ah ee ku nool magaalada Beledweyne. deeqdan ayaa ka koobneed bur, bariis, saliid iyo timir ayaa qoysaska danyarta la gaarsiiyay. waxa uu mahad celiyeen dawladda Cumaan taageerada walaaltinimo oo ay la garab taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed oo ay daashadeen abaaraha iyo dagaalada. aniga ah Maxamed Ismaan Bacad dawladda Cumaan oo islaamka deeqda ay soo gaarsiisay deeqdaas oo kamid ah haaf bariis, haaf bur, 10 kiilo oo sonkor ah, 8 kiilo oo bur, 10 kiilo oo saliid ah oo dhameystiran. wanaagsan miisaanka Allah ku qabo. علي حسين علي دمان عن قارن بريس سكر باسط عثمان هذا العسل وعمانتنا للسيد أكبر وناكسن دولة عمان بر بريس سليد سكر تمر علان تطبشي أي نتيجة نلش إن وحواي وقت الصور نهو كلنا أول تجرني لكن هذا الحمد لله وفي عمه. gudoomiyaha degmada Beledweyne Macallin Ismaan Cabdi Qalafu ayaa sheegay in raashinkan ay qaybiyeen qoysaska danyarta ah. waxaanu xusay inay jiraan qoysas kale oo aad ugu baahan in la gaarsiiyo deeqdan oo kale oo aad u dhibaataysan. waxaan mahad celinayaa mar labaad muxuu ahaay dawladda Cumaan oo soo gaarsiisay dalka Soomaaliya guud ahaan deeq afurus Ramadaan siisay gaar ahaan degmada Beledweyne dad muxuu ahaay dhowr boqol oo qof ah oo u baahnaa in la soo gaarsiiyo raashinkaasi. waxay soo tihiin in dadka Soomaalida ah dad aad u tiro badan oo ay gaari kareen raashinkaasi inta ay nasiib Ilaahay u geliyay ayaa martay in raashinkaas ay nasiibsadaan. inta kalena waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala Ramadaankan barakadiisa Ilaahay fadligiisa inay soo gaaraan wax kale oo hadda anaga aan ogeyn. raashinkaas wadada helay dadna weli ma gaarin. waxay soo tihiin dadka dhowr kun oo qof ah ku nool degmada Beledweyne. waxa la keenay waxay aad u yaray ahayeen. waxaan rajaynaynaa kalena Ilaahay gacantiisa ku jirto wax badan in soo gaaraan dadkii hadda wax helin in wax badan ay soo gaaraan waa rajaynaynaa bidin Ilaahay kariim. wallahi waqtigan hadda aan joogno dadka danyarta iyo kuwa kale waxa isku bardhaceen sababtoo ah qofkii wax hays waxa ku soo dulqaxay dhowr 20 qof ayaa dul saaran. asiga marka haysashadiisa waxay beelaysaa intaas ku soo dulqaxay. marka kii fakhriga kii taajirka waa isku barbar dhacay noqdeen hadda dadka dalisi waxay badiyeen danyar. dawladda Cumaan ayaa waxa ay kamid tahay dawladaha taageera Soomaaliya waxaana tan ay muujinaysaa taageerada ay u horeen walaalahooda Soomaaliyeed. waxaana xusud mudan in deeqda raashinka ah in laga qaybiyay maalmihii la soo dhaafay magaalada Beledweyne iyo qaar kamid ah xarumaha danta guud ee ku yaala magaalada Beledweyne. Cabdishakuur Ismaan Cali SNTV Beledweyne.